Assalaamu calaykum daawade. Bartan waa xogta qarsoon. Muuqaalkani waxaan ku soo koobayaa. Waan ku guursanayaa ayuu igu yiri, balse waa uu qiyaamay. Sheeko xanuun badan ayaan muuqaalkani kaga hadli doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelka ku soo gaaro, bartan waa xogta qarsoon. Magaciiguna waa Yaxye Maxamuud Maxamed. Waxaan ka codsan lahaa inaad saaxiib igula noqoto bartan. Hagaag. Gabdha badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika waxay u hayaamaan waddamada carabta si halkaasi ugu raadsadaan nool dhaanta tan dalkooda ay kaga nool yihiin. Gabdhaha shaqaalaha ka noqda waddamada carabeed ee taga qaaradda Afrikana ka baxa waxa ugu badan oo kuwa ka soo jeeda dalka Itoobiya oo ka mid ah dalalka ugu saboolsan qaaraddan. Inta badan gabdhahaas intay carabta shaqo u joogaan waxay la kulmaan dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin dil, kufsi, jirdil iyo mushaaraadka ay ku shaqaynayeen oo loo diido, taas oo sababtay in naftooda ay ku waayaan ama ayagoo dhimirka loogu jiro dalkooda dib ay ugu soo laabtaan. Haddaba qofka muddo shaqaalaha ka soo ahaa dal aan kiis ahayn oo dhibaatooyin inta leeg u sabray hantida ama lacagta yareed uu ka soo shaqaystay oo lahaa dalkaaga markaad ku noqoto aad noloshaada ku dabartid lagaa dhaco ama lagaa qiyaamo xanuun ayay leedahay waana dareemi kartaa daawade. Haddaba gabadhani sheekadeeda soo socota maxaa ku dhacay? Shaashe waxay ka mid tahay gabdhaha u dhashay dalka Itoobiya oo lacagtii yareed oo ay shaqaysatay nin ku yiri waan ku guursanayaa oo ka qiyaamay. Waxay ka sheekeynaysaa wixii ay la kulantay. Shaashe oo ka soo jeeda galbeedka Shawa waxaa halka ay ku nooleed oo asal ahaan ay ka soo jeeda loo yaqaan Koteba oo isku barteen wiil dhalinyaro ah. Wiilkii waxa uu ku abuuray jaceylkaas oo gaaray inay heshiiyaan inay nolol wadaagaan iyadoo wixii lacag oo Sacuudi Carabiya ay ka soo shaqaysato magaciisa ay ku soo dirtaa si ay wax ugu qabato. Markay xoogaa isku aruursadaan dalka u timaado sidaa ay shaqo ku abuurtaan noloshan ay ku midoobaan. Sacuudi Carabiya ayaan u shaqo tagay. Sacuudi Carabiya markii aan joogay waxaan shaqaynaya haweeney la nooshaa walaasheed oo curyaan ah oo aan kaadidii saxradaba aniga ka qaadaa oo aan qaadimkeeda gaarka u ahaa. Waxa ii joogto ahayna inaan maalin walba dharka iyo gogasha ka bedelo oo nadaafadeeda ka shaqeeyo ayay tiri. 4 sano aan reerkaas u shaqaysanayay bishii mushaar ahaan waxaa loo siin jiray 700 oo riyaal oo Sacuudi Carabiya iyadoo mushaarka xilliga ku habboon aan la siin jirin. 4 sano kadib ayay reer kale u wareegtay waxaana ay u shaqaynaysay 900 oo riyaal oo mushaar ah bishii. Guri cusub oo aan galay waxa uu ahaa cadaab yar. Habeen iyo maalin guriga ayaa dusha la iga xiri jiro liima ogolaan 24 saac inaan guriga meel uga dhaqaaqo. Cadceedda xitaa inay soo baxday inay dhacday ma kala ogaan jirin. 2 sano ayaana sidaas ku shaqaysanaya ayay tiri. Iyadoo ka sheekeynaysa sida ay ku aamintay inay ninkaas lacagta ugu soo dirto ayaa waxay tiri waxaana wiilka ku aaminay walaalkii oo aan isnaqiinay oo isoo wacay oo ugu yiri walaalkay waa wiil diin leh fadlan guurso. Hadalka walaalkii ayaana igu dhiirigeliyay inaan u xiriiriyo aadna aan iskula hadalno oo aan go'aansaday inaan guursado. Markii dambe waxa uu ogaaday ninkii ii been sheegayay lahaa waan ku guursanayaa oo lacagteedii oo dhan aan u dirayay inuu naag kale uu ku guursaday lacagtii aan aniga ku soo daalay shilin uu ii hayn naagtuu guursadayna u wad u dhashay. Waaga ayaa igu bariyay talana waa igu cadaatay aniguna waxba gacmaha kuma hayo nin ii lacagtoona 6 sano in ka badanna waxaan guri carabeed ugu soo shaqaynayay halkaas ayay ku dambeysay tiri. Waa dareemi kartaa dhaawaca niyad jabkii moral xumada ee arrintan igu reebtay. Weliba waxaan ka baqayaa inaan rag dambe aamini waayo sida uu ninkani ii qiyaanay darteed. Haddii aan teeda ahaan lahayd waan jeclaan lahaa lacagta aan u soo diro dhul inta uu inoogu iibiyo gurina noo dhiso shaqo ganacsina noogu abuuro aniga aan aroos u yimaado hamigeyga oo dhan riyaa ayuu noqday. Waa hadda inaan shaqo hor leh iyo rafaad hor leh u maraa si aan nolosheeda u kaafiya iyo raacisay. Waxaase wax walba iga daran oo aan iloobi laahay axadda anigoo lacagta oo dhan u soo diray ayaa subaxii Isniinta la soo hadlay si aan u hubiyay inuu lacagtii helay in kale. Taleefankii wuu xirtay baraha aynu ku xiriiri jirnay blog ayuu iga saaray tiri. Maalinta wixii ka dambeeyay muddaan iyo jabkii soo gaaray awgii cunto waan cuni kari waayay waan seexan kari waayay 3 bilood ayana dhibkaas ku jiray raacisay. Markii dambe caafimaad darro ayaa ila soo diristay sankii afka oo dhiig ayaa iga yimid. Maalintii 3 jeer ayaan dhakhtar booqanayay oo faleenba la igu surayay. Dhibkaas oo dhan waxa ii geystay ninkii aan doonayay inaan nolol wadaagno oo qiyaamo inta leeg ii geystay raacisay. ugu dambeyn shaasho walaalkeed oo ka xumaaday dhibka walaashii loo geystay ayaa arinta booliska gaarsiiyay ha yeeshee boolisku ma suuragelin inay helaan ama ay soo qabtaan ninka lacagta ka dhacay oo nafteeda qiyaamay.
hagaag muuqaalkeeni maanta waa naga intaas ilaa dhammaadka dii aad joogto daawada waxaan kaa codsanayaa inaad sheer garayso saaxiibadaadana la wadaagto nabadgelyo